Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. 12-kii January sanadkii 1998, tuulo yar oo lagu magacaabo East Hampton oo ku taalla gobolka Connecticut ee waddanka Mareykanka, ilmo yaryar ayaa waxay ka soo laabteen iskuulka waxayna ku socdeen guryahooda. Laakiin ka hor intii aanay tegin guryahooda, waxay sii mareen beer yar oo lagu nasto oo ku taalla tuuladaas. Markii ay beerta yimideen, laba ka mid ah ardayda ayaa beerta soo dhex socday. Intii ay socdeen, waxay arkeen wax u muuqda inuu yahay meydka qof. Markii ay soo kor istaageenna, waxay arkeen inuu yahay meydka haweeney weji u taalla. Intaa kadibna goobta waa isaga carareen. Arrinkana waxaa lala socodsiiyey booliska. Markii ay booliska imaadeen, sidoo kalena waxaa yimid dambibaarayaasha. Kiiskaana waxaa loo xil saaray nin dambibaare ah oo lagu magacaabo Garrett Kelly. Dambibaarayaasha iyo boolisku markii ay goobta imaadeen, wax caddayna waa ay ka waayeen oo dilaagii ka tegey. Kaliya waxay heleen raadka baabuur. Sidaana wuxuu ku ogaaday dambibaaruhu in meydka goobtan lagu soo tuuray, oo goobtan aysan ahayn goobtii lagu dilay oo keliya ay tahay halkii lagu soo tuuray meydka oo looga takhalusay. Intaa kadib, kooxdii caafimaadka waxay soo gediyeen meydka haweeneydii, isla markiina waa uu aqoonsaday dambibaaruhu. Inta ugu badanna dadku waa is yaqaaneen. Tuulo aad u yar ayay ahayd oo dadku is wada yaqaaniin. Haweeneyda waxay ahayd Gertrude Jankowski, waxaana loo yaqaanay Trudy. Magacaas ayaan isticmaali doonaa, magaceeda hore dhibkii ka batay dabcan. Trudy waxay ahayd 60 jir, waxayna ku dhalatay kuna barbaartay nolosheeda oo dhanna ku qaadatay tuuladaas East Hampton. Markii ay soo gediyeen meydka, wax dhaawaca korkeeda waa ay ka waayeen, sida dhaawac xabad oo kale ama dhaawac midi oo kale waa ay ka waayeen, mana aysan aqoon sababta ay u geeriyootay ilaa iyo xilligaas. Intaa kadibna waxay u direen qaybta caafimaadka si loogu sameeyo baaritaan caafimaad. Intii ay ku maqneed baaritaanka caafimaad, dambibaaruhu wuxuu aaday gurigii Trudy. Trudy waxay dhashay 2 gabdhood. Labadii gabdhood ayuuna la kulmay, wuxuuna uga tacsiyeeyey geerida hooyadood. Sidoo kalena wuxuu weydiiyey haddii hooyadood ay xiriir nin la lahayd. Waxay u sheegeen inuu jiray nin uu xiriir ka dhexeeyey, laakiin xiriir toos ah mar walba ay wada kulmaan uusan ka dhexayn, oo marmarka qaar is arki jireen, oo lagu magacaabo Ray Brown. Intaa kadibna dambibaaruhu wuxuu la kulmay Ray Brown. Markii uu la kulmay Ray Brown, wuxuu weydiiyey marka koowaad xiriirka ka dhexeeyey isaga iyo Trudy. Ray Brown wuxuu u sheegay in isaga iyo Trudy ay xiriir lahaayeen, laakiin xiriir toos ah oo mar walba ay wada kulmaan uusan ahayn, oo marmarka qaar oo keliya is arki jireen. Intaa kadib, dambibaaruhu wuxuu weydiiyey Ray Brown halkii uu jiray 11-kii July. Wuxuu u sheegay Ray Brown dambibaaraha in uu magaalada ka maqnaa dhowr maalmood, oo uu ku maqnaa inuu ka qayb galo tartan ciyaarta bowling-ka. Sidoo kalena wuxuu u sheegay in qaar badan oo ka mid ah booliska ka shaqeeya xarunta uu ka shaqeeya Kelly ay kala qayb qaateen tartankaas. Intaa markii ay ka ogaadeen Ray Brown, waxay ogaadeen inuu haysto xujo adag oo uusan noqon karin eedaysane. Intii aysan ka tegin dambibaarayaasha ka horna, Ray Brown wuxuu ku yidhi dambibaarayaasha, ma jiraa qof idiin sheegay ama qof idinla wadaagay nin basaasayay Trudy ama nin dabagal ku hayay Trudy? Wuxuu u sheegay dambibaarayaasha inuu jiray nin habeen walba daaqadeeda soo istaagi jiray oo indhaha ku hayi jiray Trudy, sidaa darteedna ay doonayday Trudy inay ka guurto gurigaas. Dambibaarayaashuna hore uma aysan maqal sheekadaas. Waxay doonayeen inay ogaadaan ninka basaasayay Trudy cidda uu ahaa. Kadibna waxay bilaabeen in dadkii la deganaa dhismaha Trudy ay weydiiyaan bal haddii ay yaqaaneen nin basaasayay Trudy. Intooda ugu badanna waxay ku yiraahdeen ma naqaano, ilaa ugu dambeyntii ay soo gaareen guriga haweeney. Haweeneydaas waxay ku tiri waa aqaanaa, si fiican ayaan u aqaanaa, waa wiilkayga Eddie. Intaa kadib, dambibaarayaashu waxay ku yiraahdeen waxaan rabnaa inaan la kulanno Eddie. Waxay ku tiri waxaa xiray booliska, wuxuuna ku xiran yahay xabsiga. Markii ay dambibaarayaashu intaas ogaadeenna, waxay tageen xabsiga, waxayna ogaadeen in Eddie uu xiraa muddo, sidoo kalena uu muddo sii xiraa doono. Sidaa darteed, isaguna ma noqon karin eedaysane, sababtoo ah xilligii dilka dhacay isaga wuxuu ku jiray xabsi. Intaa kadib, dambibaare Kelly waxaa laga soo wacay qaybta caafimaadka, wuxuuna tegey qaybta caafimaadka. Waxay u sheegeen qolada caafimaadka markii ay baaritaan ku sameeyeen meydkeeda in sababta ay u geeriyootay ay tahay ceeji, oo ceejo lagu dilay. Sidoo kalena waxay tuseen isheeda bidix, waxaana ugu jiray isha bidix caagan lensiga loo yaqaano ee kalarsan ee indhaha kalarka ka dhiga. Markii ay isha midig fureenna waa ay ka waayeen. Sidoo kalena dhegta bidix waxaa ugu jiray dheg, halka dhegta midig dhegtii ugu jirtayna ay maqneed. Dambibaaruhu wuxuu ogaa haddii uu soo helo dhegta iyo caagga isha ee lala yahay inuu soo heli doono goobtii uu dilku ka dhacay. Dhacdadan markii ay ogaadeen dadkii tuulada, qof walba wuxuu soo wacay booliska, wuxuuna la wadaagay wixii macluumaada uu ka hayay Trudy. Uu is leeyahay waxay anfici doontaa sidii lagu soo qaban lahaa dilaaga. Intii uu baarayay Kelly macluumaadkii ay dadku la wadaageen booliska,
waxaa ka mid ah macluumaadkii lala soo wadaagay. Haweeney ayaa waxay la soo wadaagtay booliska in subaxii 12-kii January xilli ay wiil eedda ay u tahay ama ay habaryar u tahay ay u waday meel basaska laga raaco inay soo martay aroortii hore beerta. Markii ay marayda buundada yar ee ka dul dhisan webigana inay aragtay baabuur taagan webiga dhinaciisa. Baabuurka nuuciisana waxay ku sheegtay inuu ahaa baabuur buluuga oo nuuciisu yahay Volvo Sedan. Kelly markii uu helay macluumadan wuxuu is yiri waxaa laga yaabaa inay mar uun ku anfacdo, sidaa darteed goob gooni ayuu dhigtay. Sidoo kale wuxuu ogaaday dambi baaruhu inuu jiro nin ay muddo dheer xiriir lahaayeen Trudy, xiriirkooduna uu marna jiray marna ay isku dhacayeen, haddana ay dib isugu soo laabanayeen, haddana ay isku dhacayeen. Ninkaas waxaa lagu magacaabaa Harold Jamieson. Markii dambi baaruhu uu ninka la kulmay wuxuu u sheegay in markii ugu dambeysay isaga iyo Trudy ay isku dhaceen, Trudyna uusan arag 3 asbuuc ka hor markii la dilay. Intaa kadib dambi baaruhu wuxuu weydiiyey halkii uu joogay habeenkii 11-kii January. Wuxuu u sheegay Harold inuu joogay Labadaanyada. Wuxuu ku yiri dambi baaraha waxaan soo maray Labadaanyada kadibna waxaan arkay baabuurka Trudy. Markaan baabuurka Trudy arkayna waxaan ku leexday Labadaanyada si Trudy aan ula heshiiyo oo khilaafkii naga dhexeeyay aan u xalino. Laakiin markii aan tagay Labadaanyada Trudy waa aan waayay kadibna waan sugay. Waa uu sugay kadibna waa uu sugay laakiin waa ima weyday Trudy. Isagana goobta waa isaga tagay. Dambi baaraha wuxuu ku yiri markii aan weyday Trudy maxaa booliska ula soo socodsii weyday. Wuxuu ku yiri Harold kama aana fikirin ama ma aana dareensanayn in Trudy lala yahay ama in Trudy la afduubtay. Waxaan islahaa danteeda ayay u baxday, sidaa darteed ayaan goobta isaga tagay. Inkastoo dambi baaruhu ninkan uusan hadalkiisa ku qancin, haddana wuxuu dareensanaa inuusan dilaaga noqon karin. Muddo kadib maalin maalmaha ka mid ah ayaa dambi baaraha waxaa soo wacay nin farayaamo ah. Farayaamo kuwa alwaaxda ka shaqeeya sida miisaska iyo kuwa sameeya. Waxaan rajeynaa inaad fahmi doontaan. Ninka faryaamaha ah wuxuu u sheegay Kelly in xilli uu dayactir ku sameynayay abaartamiinto ku taala qaybta sare ee dhismaha ay ku taala Labadaanyadu inuu ka helay dheg. Markii dambi baaruhu uu goobta tagayna mid ka mid ah baarayaashii Kelly ayaa wuxuu helay caaggii isha. Sidaana wuxuu ku ogaaday Kelly in goobtan ay tahay goobtii uu dilku ka dhacay. Intaa kadib wuxuu weydiiyey ninkii faryaamaha ahaa yaa haaya furaha gurigan oo gurigan yaa soo geli kara. Wuxuu ku yiri waxaa haaya 2 qofood. Qofka koowaad waa Frank. Frank waa ninka guriga leh. Isla markiiba isagu eedeysananimada waa uu ka fogay dambi baaruhu sababtoo ah Frank ma uusan joogin magaalada. Qofka labaadna wuxuu u sheegay inuu yahay nin lagu magacaabo Brian Tuttle. Ninkaas magaciisu waa uu ku cusbaa dambi baaraha wuxuuna xiiseynayay inuu baaritaan ku sameeyo uu ogaado cidda uu yahay Brian Tuttle. Markii dambi baaruhu uu tagay xarunta booliskana wuxuu baaritaan ku sameeyay magaca Brian Tuttle. Wuxuu ogaaday dambi baaruhu arrin ka bedelay Brian Tuttle qof ay xiiseynayaan inay wax ka ogaadaan una bedelay inuu noqdo eedeysanaha koowaad. Waxay ogaadeen in Brian Tuttle hore loogu eedeeyay afduub iyo xadgudub jinsi. Mar dhowna uu xabsiga ka soo baxay. Intaa kadib dambi baaruhu wuxuu u yeeray Brian Tuttle wuxuuna ka qaaday wareysi. Marka koowaad oo ay kulmeen Brian Tuttle waxa wejiga kaga yaalay dhaawac inta u dhaxaysa labada sunniyood. Wuxuuna weydiiyey dambi baaruhu Brian maxaa kaaga dhacay wejiga. Wuxuu ku yiri shaqada ayaan ku dhaawacmay. Sidoo kalena dambi baaruhu wuxuu ogaaday in Brian uu ka shaqeeyo dhismaha ay ku taala Labadaanyada. Markii uu Brian wareysiga ku bilaabay wuxuu ku yiri ma taqaanaa Trudy. Kadibna wuxuu ku yiri Brian ma aqaano. Wuxuu tusay sawirkeeda laakiin Brian wuxuu ku yiri ma aqaano weligeyna ma aanan arag. Dambi baaruhu wuxuu weydiiyey Brian sidoo kale halkii uu joogay habeenkii 11-kii January. Brian wuxuu u sheegay dambi baaraha markii uu shaqada ka baxay inuu sii maray dukaan lagu iibiyo pizza oo ka soo horjeeda Labadaanyada. Kadibna uu gurigiisa aaday kadibna uu iska seexday. Intaa kadib dambi baaruhu wuxuu weydiiyey Brian eedii hore ee lagu xiray. Kadibna wuxuu yiri Brian waxay ahayd isfaham waa anoo cabsan ayaan haweeney la hadlay kadibna waxay u maleeday inaan xadgudub jinsi ku sameynayo sidaa darteed ay booliska ula xiriirtay oo la ii xiray. Markii uu dhowr su'aalood dambi baaruhu weydiiyey Brian wuxuu ku yiri ma doonayo inaan wareysiga sii wado. Sidaa darteed waa uu isaga tagay goobta. Laakiin wuxuu ka tagay sigaar uu cabayay haaf ka mid ayuu goobta kaga tagay. Kelly wuxuu is yiri waxaa laga yaabaa in sigaarka uu goobta uga tagay uu maalin uun caddayn idin noqdo. Sidaa darteed sigaarka wuxuu dhigay halka lagu kaydiyo caddaymaha. Dambi baaruhu intaa kadib wuxuu tagay Labadaanyada kadibna wuxuu weydiiyey dadka caadiga ah ee dharka ka dhaqda haddii ay yaqaaniin Brian Tuttle. Intooda badanna waxay ku yiraahdeen waan naqaanaa maxaa ka rabtaa inaad ka ogaato. Kadibna wuxuu ku yiri Brian Tuttle iyo Trudy ma is yaqaaneen. Waxay u sheegeen inay is yaqaaneen dhowr jeerna ay arkeen iyagoo isla hadlaya. Sidoo kalena dambi baarayaashu waxay ogaadeen in Brian Tuttle iyo Trudy ay dhowr mar wada hadleen. Trudyna ay kala hadashay Brian Tuttle sidii looga kireyn lahaa guriga qaybta sare. Dambi baarayaashu markii intaas ogaadeen waxay ogaadeen in Brian uu been u sheegay.
kadibna waxay tageen dukaanka biitsaha. Markii ay tageen dukaanka biitsaha lagu iibiyo, ninkii dukaanka lahaa wuxuu ku yidhi Brian habeenkaas waa uu yimid, weliba wuxuu yimid isagoo xanaaqsan oo indho gadguduudan, khamri ayuuna ka dhargay. Sidoo kalena wuxuu u sheegay dambibaarayaasha in Brian markii uu weydiiyey waxa uu xanaaqsan yahay uu u sheegay in saaxiibtiis ay ku sameeyday khiyaano oo nin kale la khiyaantay, kadibna ay isdagaaleen oo ay iskhilaafeen, doodna ay galeen, kadibna ay guriga ka soo buriday. Intaa markay ogaadeen dambibaarayaashu, mar kale ayay Brian Tadal waxay ugu yeereen waraysi. Markaana waxay weydiiyeen muxuu u inkiray inuu yaqaano Trudy, laakiin mar kale waa uu diiday oo waa uu inkiray inuu yaqaano Trudy. Kadibna waxay weydiiyeen meesha biitsaha uu tagay iyo saaxiibtiis uu ka hadlayay. Wuxuu u sheegay in lagu magacaabo Dennis saaxiibtiis. Markii ay soo hadal qaadeen hadalka saaxiibtiisna waa uu xanaaqay, kadibna mar kale ayuu isaga tagay waraysiga. Ugu yaraana dambibaarayaashu markaan waxay heleen magac. Isla markiiba waxay u tageen saaxiibtiisii hore Dennis, kadibna waxay u sheegtay sheeko ka duwan sheekadii uu isaga u sheegay. Waxay u sheegtay in isagu uu yahay nin xanaaq badan oo dabeecad xun, sidaa darteedna ay isugu dhaceen. Habeenkaasna ay doodeen, kadibna ay iska raacdayday. Sidoo kalena waxay u sheegtay dambibaaraha in habeenkaas uu baabuurkeeda watay. Markii uu dambibaaruhu weydiiyey baabuurkeeda nuuciisana waxay u sheegtay inuu yahay baabuur buluug oo nuuciisu yahay Volvo Sedan. Isla markiiba dambibaaraha waxaa ku soo dhacay haweeneydii booliska la soo socodsiiday inay aragtay subaxii 12 bisha January baabuur buluug oo nuuciisu yahay Volvo Sedan oo taagan webiga dhinaciisa. Intaa markii uu ogaadana dambibaaruhu wuxuu aaminsanaa in baabuurkaas uu ahaa baabuurkii loo isticmaalay in meydka lagu qaado, wuxuuna ku qasbanaa inuu baabuurka raadiyo. Laakiin nasiib wanaagiisa baabuurkii ayaaba isaga soo raadiyey. Dambibaaraha waxaa la soo xiriiray nin lagu magacaabo Jeremy Hartley, wuxuuna ahaa in adeerka Brian Tadal. Wuxuu u sheegay dambibaaraha in Brian Tadal uu beertiisa kaga tegay baabuur. Markii dambibaaruhu uu imaadayna goobta, baabuurku wuxuu noqday isla baabuurkii, baabuur buluug oo nuuciisu yahay Volvo Sedan. Markii ay baabuurka baaritaan ku sameeyeenna waxay ka heleen meel yar oo u muuqata inuu qof xagtay. Meeshii yareed ayay jareen waxayna u direen shaybaarka. Baaritaankuna wuxuu qaatay dhowr usbuuc. Baaritaanka kadib waxay soo saareen in meeshan yar ee xagatinka iyo Trudy ay isku xiran yihiin oo Trudy baabuurkaas lagu qaaday. Laakiin wax DNA ah waa ay ka waayeen. Xilligaasna baaritaanka DNA-gu si fiican uma uusan hormarsanayn oo waxay ahayd 1998. Intaa markii ay ogaadeen dambibaarayaashu iyagu waa ay hubeen in Brian Tadal uu yahay qofka dilaaga ah, laakiin caddayn muuqata oo la taaban karo ma aysan ku hayn Brian oo ay maxkamad ku gey karaan. Sidaa darteed waxay ku qasbanaayeen inay iska sugaan oo ay sugaan. Sugitaankooduna wuxuu qaatay 15 sano. 2013 ugu dambeyn mar kale ay baaritaan dib ugu sameeyeen. Maadaama cilmiga DNA-gu uu horumar fiican sameeyana, markaan waxay ka heleen DNA-ga Brian Tadal iyo DNA-ga Trudy. Waxayna sidan ku xaqiiqsadeen in baabuurkaas uu saaraa Brian Tadal habeenkaas, Trudyna oo meydana ay saareed. Dambibaarayaashuna waxay ogaadeen sida uu dilka u dhacay. Dilku wuxuu u dhacay Brian Tadal markii habeenkii ay isku soo dhaceen saaxiibtiis, kadibna uu tagay meesha biitsada khamrina uu ka dhargay. Markii uu ka soo baxay wuxuu arkay Trudy oo joogta labadaanyada. Kadibna waa u yimid wuxuuna ku yidhi ma jeclaan lahayd inaad soo fiirido abaartimiintada qaybta sare oo ay weydiiday oo aad doonayda inaad kiraysato. Trudy waxay ku tiri waa xilli dambe, laakiin wuxuu ku yidhi 1 daqiiqo iyo 2 daqiiqo ayay qaadanaysaa soo fiiri oo keliya. Kadibna waa ay raacday maadaama aanay wax cabsiya ka qabin. Markii ay tageen qaybta sarena, Brian waa uu ku soo booday, kadibna waa uu ceejiyey, waana uu kufsaday, waana uu dilay. Kadibna meydkeeda wuxuu ku qaaday baabuurka, kadibna wuxuu ku tuuray webiga dhinaciisa. Markii intaa ogaadeen dambibaarayaashu caddaynna ay ku hayaan Brian, waxay raadiyeen Brian xaguu joogaa. Waxay ogaadeen inuu joogo gobolka North Carolina. Intaa kadibna dambibaarayaashu waxay la xiriireen booliska gobolkaas. Brianna waa la soo qabtay, waxaana loo soo wareejiyey gobolka Connecticut. Gobolkaas ayaana lagu maxkamadeeyey. Maxkamadeyntu waxay socotay 2013 ilaa 2016. Markii la keenana wuxuu ahaa maruu si fiican u soo cayilay, isaga oo bararay ayaana maxkamadda la soo taajiyey. Ugu dambeyn 2016 maxkamaddu waxay ku xukuntay Brian Tadal xabsi daa'im. Muuqaalkeeni maanta intaasuu ku egyahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa ammaan Allah.